dhulka Soomaalida maalinba maalinta ka dambaysa waxa soo gaadhaya waxyaabo casri ah isla markaasina ku cusub indhahooda. Inta badan aaladaha cusub ee soo gaadha deegaanada Soomaalida bulshada Soomaalidu waxay uga faa'iideystaan siyaabo kala duwan. Halkani waa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Xilliguna waa xilli habeena. Telefishinka Somali News ayaan u kurgalaya isbedelada habeenkii ee suuqyada magaalada Burco. Waxa indhahayaga si weyn u soo jiidanaya magacyada elektarooniga ka samaysan. Waxaana dhammaan qalabka isticmaalaya goob kasta oo shaqo. Goobaha caafimaadka, goobaha waxbarashada iyo sidoo kale goobaha ganacsiga iyo meherad kasta oo shaqo. Qalabkan elektarooniga ayaa waxa loo yaqaanaa aaladda 3D. xilliyadii hore suurtagal ma ahayn in dhammaan suuqyada magaalada Burco iyo sidoo kale goobaha shaqadu dhammaantood ay helaan qalab ama aalad. Goobaha shaqada ganacsatadu waxay meheradooda ku xayeysan jireen boorar ama sidoo kale sawir gacmeedyo, taasi oo in badan aan sii shaqayn jirin boorarka iyo sidoo kale sawir gacmeedyada. Waqti kooban kadib shirkado ganacsi oo laga leeyahay dhulka Soomaalida ayaa adeegan casriga keenay dhulka Soomaalida si ay bulshada Soomaalidu ay uga faa'iideystaan isla markaasina ay meesha uga saaraan aaladii hore ee ganacsigooda ay ku xayeysan jireen. Shirkadda Asal waxay ka mid tahay shirkadaha ganacsi ee markii ugu horeysay adeegan casriga ka hirgeliyay dhulka Soomaalida iyo magaalada Burco. Axmed Dalmar oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Asal Chat ayaa telefishinka Somali News uga warbixiyay adeegan cusub ee 3D-ga sida ay uga faa'iideystaan bulshada gobolka Togdheer iyo bulshada Soomaalidu si ay ugu xayeysitaan ganacsigooda. shirkadda Asal waxay bixisaa adeegyo fara badan oo ay ugu waaweyn yihiin xayeysiinta meheradaha loo soo daabacayo dhammaan boorarka, stiikarada, wax kasta oo ay daabacdo shirkad daabacdeed ayay shirkadda Asal soo saartaa. walibana iyadoo baaxadeeda iyo tayada waxyaalaha ay soo saaraysaa ay aad u sareyso. waxaan imika gobolka Togdheer ku soo kordhinay adeega 3D-ga magaca iftiima ee sida hilaaca u socda. adeegaas oo wax badan ka bedelaya ganacsiyada oo matalan oo kale boorkii aan habeenkii muuqanaynin ayaa u muuqanaya. adeegaas oo si habaysan oo qurux badan oo naqshadaysan oo habkii ugu qurux badnaa la idinku sameeyay baan idinku soo dhaweynaynaa. dhammaan bulshada gobolka Togdheer waxaan ku soo dhaweynaynaa adeega cusub ee 3D-ga ah, qiimaha ugu macquulsan iyo farsamada ugu macquulsan uguna wanaagsan ayaan idin haynaa. shirkadda Asal sida wada ogsoontiin waa shirkad ballaaran, waxay ka jirtaa dalka goboladiisa oo dhan ayay ka jirtaa. adeegan 3D-ga iyo adeega daabacadda labadaba nimanka muddo way ka shaqeynayeen gobolka Togdheer. hore 2017 ilaa imika way shaqeynaysay, laakiin hadda waxaanu keenay qalabkii oo meelo kale aan laga dalbanayn gobolka Togdheer lagu sameynayo sida ugu dhaqsaha badan leh. 3D-ga marka hadda sanadkan iyo sanadkii hore waa ku sameynay halkan. marka hadda waxaanu idin diyaarinay qalabkii oo la idinku diyaarinay goobtiina gobolkiina. inta badan bulshada Soomaalidu aaladaha si cusub waxay uga faa'iideystaan siyaabo kala duwan. aaladan 3D-ga ayaana ka mid ah aaladaha ay bulshada Soomaalidu sida weyn uga faa'iideystaan isla markaasina ay u adeegsadaan ganacsiga noocyadiisa kala duwan. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camar, TV-ga Somali News, magaalada Burco.